videogan waxaan ugu talagalay qofkii doonaya inuu mataqaanaa miisaankiisa uu wax ka dhimo. waxaan ka hadli doonaa mataqaanaa sababaha qofka ku dhalin kara inuu miisaanka iska yareeyo ama uu weight loss program uu galo. waxaan kaloo ka hadli doonaa mataqaanaa qofka waxa uu u baahan yahay inuu sameeyo inta uusan mataqaanaa uu guda gelin miisaan dhimista. waxaa kaloo aan mataqaanaa si kooban uga hadli doonaa cuntooyinka la cuno iyo mataqaanaa waxyaabaha kale aad sameynaysid si mataqaanaa aad u gaartid goolkaaga. marka midda koowaad, qofka marka uu go'aansanayo inuu miisaanka iska rido ayaa horta waa inuu qofka ogaadaa inuu u baahan yahay miisaankiisa inuu yareeyo in kale. midaasina mataqaanaa waa mid aad iyo aad muhiim u ah. waxay muhiim ku tahay qofka haddii uusan u baahnayn inuu miisaan rido oo miisaankiisa uu dhimo, miisaanka iska yareeyo, waxaa laga yaabaa inay cudurro mataqaanaa midaas ay u keento. sababtuna waxay tahay difaaci jirka iyo jirka awoodiisii ayaa hoos u dhacaysa. marka ugu horeysa qofka inta uusan mataqaanaa go'aansanin inuu miisaan rido waa inuu dhakhtarkiisa u tagaa, uu kala tashadaa, uu yiraahdaa what is an ideal weight for my age. qofka marka waa inuu yiraahdaa mataqaanaa miisaanka mataqaanaa oo dadka anigoo kala ah oo da'deedoo kala ah miisaanka oo caadiga normal ku ah waa maxay. marka dhakhtarkaaga waxa uu kuu sheegayaa haddii miisaankaaga uu yahay meeshii looga baahnaa lambaraha jiro. sida hadda mataqaanaa anigoo kale waxaan ahay 6 feet dharkeyga waa ilaa iyo 6 feet. sidaas daraadeed weightkeyga waxaa normal u ah 150 ilaa iyo 180 inta u dhaxayso. marka waa iskar normal. sidaas daraadeed qof walba mataqaanaa waxa mataqaanaa ideal number baa jiro. ideal numberkaas waa inuu ogaadaa. waxaa jira wax kaloo la yiraahdo oo BMI, waa mataqaanaa qofka waxa uu sheegayaa inta jirkiisa mataqaanaa cadiinta percentagekaas ayuu u sheegayaa. midaasna waa inuu mataqaanaa uu ka xaqiijiyo dhakhtarkiisa. sidaas markii uu la socdo qofka la yiraahdo okay waxaad u baahan tahay inaad mataqaanaa miisaan aad dhintid miisaankaaga. marka stageada way kala yihiin. qofka wuxuu noqon karaa underweight oo miisaankiisa intii looga baahnaa ayuu hoos ka jiri karaa. wuxuu noqon karaa mataqaanaa normal weight, wuxuu noqon karaa overweight, wuxuu noqon karaa obese. marka overweight iyo obese way kala daran yihiin. overweight qofka hadduu yahay mataqaanaa cudurrada uu mataqaanaa overweight ay keeni karaan waxaa ka mid ah sida qofka cholesterol ku bato oo high cholesterol ku dhaco, diabetes ama sokorta cudurka loo yaqaano, sida dhiig karka oo kale, iyo mataqaanaa inuu qofka saddexdaas ayuu khatar ugu jiri karaa. marka haddii uu obese uu yahay qofka, khatartaasi aad bay mataqaanaa u sareynaysaa oo waxaa laga yaabaa qofkii isagoo mataqaanaa 30 jir ama 40 jir inuu cudurkii haddii mataqaanaa overweight uu ahaa oo mataqaanaa 35 mise 40 oo wixii cudurradii uga dhici lahayn waxa bilaa sababtiisa ku dhacan. laakiin waxaa jirto sabab, annagana sabab baan ku leenahay. marka waxaa laga yaabaa in qofka haddii overweight uu ahaa miisaankiisa markaas inuu mataqaanaa cudurkii xoogaa waqti dheer qaadato si uu ugu dhaco, iyadoo mataqaanaa haddii uu obese ahaan lahaana mataqaanaa cudurkaas isagoo yar ku dhici lahaa. marka haddii intaas aa mid uga gudbo halkaas, qofka waa inuu mid kale u ogaan karaa oo waxa loo baahan yahay waxa weeye dhexdiisa mataqaanaa waystigiisa cabirkeeda. marka haddii qofka mataqaanaa oo cabirka dhexda uu fiican yahay oo mataqaanaa intii loogu talagalay ideal measurement haddii lambarkii loogu talagalay uu yahay waystiga, markaas uma baahna isagana wax loose gareeyo. wuxuu u baahan yahay markaas maintenance. inta uu yahay maintenance ayuu u baahan yahay. maintenance wuxuu mataqaanaa maintenance-kana waxaa weeye qofkaas inuu mataqaanaa meeshu markaa joogo kor uuna ka aadin, hoosna uuna ka aadin. waxaa midaas ku samayn karaa in mataqaanaa cuntada uu cunayo uu xisaabiyo. midaas hadhow gadaal ayaan ka hadli doonaa sida mataqaanaa lagu maintain gareynayo. marka midaas halkaas uga gudbo, waxaan haddana mataqaanaa ka hadlayaa mataqaanaa sida cuntooyinka aad u baahan tahay inaad cuntid. qofka haddii uu doonayo inuu miisaan uu dhimo oo miisaankiisa waxa uu ka dhimo, waxa uu u baahan yahay inuu mataqaanaa faadka ama cadiinta uu cunayo inuu jaro
oo weli si zaid ugu jaro hadii overweight uu yahay ama obese uu yahay inuu si oo mataqaana sareysa ugu jaro oo fat ku cunayo very limited ay ahaato mataqaana mid kooban cuntooyinka oo fatka mataqaana ay ku badan yihiin waxa kamid ah hilib ariga Soomaaliya aad ay u jeceshahay waxa laga yaabaa qofku inuu hilib ariga ku quraacdo ku qadeeyo inuu ku casheeyo midaasna waxa la ogaaday hilib ariga inuu yahay cholesterolka hilibka ugu badan white meat ka marka la dhaho beef ka ama hilib ariga xoogaa isaga wuxuu leeyahay protein yar baa ku jiro proteinkaasna qofka jirka waa murqaha waxa dhis uu u baahan yahay laakiin hilib ariga asaga waa maxaa la pure fat waaye marka qofka waxa uu u baahan yahay inuu hadii uu weight loss uu markaas ku jiro miisaankiisa uu jaraayo waa hilib ariga oo dhan inuu joojiya mise waxa loo yaqaan red meat ka ariga iyo beef iyo mataqaana beef ka masalooda labadaba inuu jaro oo markaas uu ku bedesho waxa loo yaqaan white meat ka oo ah chicken ka digaaga iyo mataqaana kalluunka oo fish ka ah marka qofka markii intaas uu sameeyo waxa uu baahan yahay oo kale inuu iska ilaaliyo midaas fatki baheed inuu iska ilaaliyo carbohydrates waa wax mataqaana sokorta oo kale mataqaana waxa carbohydrates kale uu ku jira shaha cabno kale sokor badan baa ku jirto juice qaar sokor badan baa ku jirto mataqaana cereal-ka la cuno qaar bay sokorta ka buuxdaa baastada oo kale Soomaaliya aad u jeceshahay laakiin waxa ay leedahay carbohydrates badan mataqaana haddii qofku uu baasta jecel yahay uu baastada jari karin markaas weight loss program inuu galan uu rabo aad ay u adag tahay marka waxa uu sameyn karaa inuu mataqaana uu isku dayo inuu cuno pasta whole grain midaas oo qamadi ka wada samaysan inkastoo iyadana mataqaana ay carbohydrates u leedahay laakiin waxay ka wanaagsan tahay mataqaana mid kale mataqaana pasta kale caadiga marka waxa kale qofku u baahan yahay biyo badan inuu cabo biyaha jirka bani'aadamka aad iyo aad ayuu ugu baahan yahay mid koowaad biyaha wuxuu ku qabanayaan markii aad weight loss gareynaysid wasaqda ay saarayaan mid kale wuxuu ku qabanayaan caloosha nugleynayaan si wasaqda ay mataqaana ay kaaga baxdo marka waa sokortaas oo aad jirtid iyo fatka baruur cadiinta oo aad yareysid mid kale oo saddexaad waxa ay tahay mataqaana exercise qofka inuu exercise sameeyo oo mataqaana jimicsi oo dhaqdhaqaaqo hadda qofka Mareykanka ku nool oo kale mise wadamada kale waxa laga yaabaa inta badan inuu fadhiyo ku shaqeeyo mise qofkii taagan ku shaqeynaya dhaqdhaqaaqiisa uu yar yahay inta badan gaari inuu qofka iska saaran yahay taraalo yahay oo kale mise taksiile mise mataqaana shaqada marka soo baxo gaarigiisa uu raaca guriga ku tagay guriga gaariga ka soo raaca suuqa ku aadayo suuqa masaajidka marka waxa la qofka mataqaana mobilization kiisa inuu yar yahay oo socodkiisa aad u yar yahay midaas waxay keeni kartaa qofkii inay cadiinta meesha fadhido marka waxa dhacaya qofkii cadiin buu cunaa oo we consume calories baa cunina calories markii aan cunno mataqaana marka waxa loo baahan yahay intake iyo outtake intii aad cuntay in la eg hadii aad mataqaana miisaanka aad jaraysid intii aad cuntay in ka badan waa inaad mataqaana aad lose gareysaa aad isticmaashaa inta consume gareysay in ka yar waa inaad mataqaana lose gareysaa marka hadii mataqaana oo aad cadiin badan iyo carbohydrates badan aad cuntid exercise aad sameeynin mataqaana wixii meesha fariisanayaan dibka ugu weyn mataqaana dadka haystaan waxa weeye mataqaana abdominal fat cadiinta fariisanaysa caloosha marka midaasna waxa mataqaana ay inta badan ay waxyeelanaysaa labiska oo kale hadii mataqaana dhaxda xiranayso sidoo kale qofkii kor uu yariyaa hoos uu yaray laakiin calooshii baa taagan labiskii uu ka xumaanaya mid kale caafimaadka oo fiicano mataqaana waxa keeni karo diabetes type 2 diabetes ka waa abdominal fat waa baruurta mataqaana caloosha fadhido qof waxa arkaysaa caata ah oo wali hadan mataqaana sokor qabo marka sokorta waxa keenayo waa cadiinta fariisanaysa caloosha midaas ayaa ugu weyn mataqaana waxa qofka sokorta ku ridi karo marka waxaan ka hadalnay cuntada carbohydrates iyo fatki iyo mataqaana exercise-ki labadaas exercise-ka marka anagu wali hadda aan ka dhaxbixin ku dhex jirno exercise-ka waxa loo baahan yahay qofka inuu schedule sameesto schedule-kiisana mataqaana uu jadwalkaas uu sameystay uu mataqaana ilaaliyo oo mataqaana ay ka go'an tahay inuu mar walba uu raaco timetable-kaas ama jadwalkaas marka jadwal midka ugu fiican waxa weeye 60 daqiiqo hadii aad weight loss sameynaysid 60 daqiiqo
5 maalmood isbuuci marka waxa la qaadan kartaa jimcaha iyo sabtida kale mise haddii aad shaqaysid maalmaha kale weekendiska mataqaanaa isniintii talaadada kale mise aad 2 maalmood isbuuca kamid ah inaad mataqaanaa aad nasatid 5 maalmood oo kale maalin walbo inaad mataqaanaa aad 60 daqiiqo aad jimicsi asamaysid jimicsiga marka laba nooc waa hadana jimicsiga qofka weight ka lose gareynayo iyo qofka weight ka maintain gareynayo iyo qofka weight ka lose gareynayo saddexdaas jimicsigu u baahan yihiin laakiin se uu kala yahay qofka hadii uu rabo inuu weight uu lose gareeyo ama miisaankiisa uu dhimo waxa uu u baahan yahay inuu sameeyo cardio badan cardio wuxuu noqonayaa wadnaha inaad si zaad ugu shaqaysid waxaad ku sameyn kartaa orod badan inaad samaysid socod badan inaad samaysid biskiili badan inaad wadid markii aad mataqaanaa sameynaysid oo mataqaanaa miisaanka aad yareynaysid uma baahnid inaad biro culus qaadid sababtoo ah biro culus hadii aad qaadid murqahaaga ay weyneynayaan qofkii marka meeshii loo baahnaa inay baruurta ka dhacdo baruurtu way adkaanaysaa meel loo socoto qofkii marka waxa laga yaabaa inuu maalin walba uu gym-ka aadayo si miisaanka uu yareeyo balse ma dhacayso midaas sababtoo ah miisaan culus ayuu qaadaya waxa dhacay malaha wax uun ba koraa marka qofka hadii marka weight loss program uu ku jiro waa inuu mataqaanaa biraha culus uu iska ilaaliyaa uu badsadaa waxa loo yaqaan cardio orodka iyo mataqaanaa biskiiliga iyo socodka badan inta uu mataqaanaa awoodo midka kale exercise waxa qofka haduu maintenance uu ku jiro oo miisaankiisa inta laga rabay uu yahay mataqaanaa markaas isaga wuxuu sameyn karaa muscle ayuu dhisi karaa murqaha ayuu dhisanayaa si mataqaanaa oo xoog uu yeesho oo jirkiisa uu dhismo oo labiskiisa mataqaanaa oo labis dharku ku soo bixi karo marka wuxuu u baahan yahay qofkaas oo kale inuu murqaha u dhiso uu iska ilaaliyo cuntada mataqaanaa carbohydrates iyo mataqaanaa faatka ama cadiinta waxa uu sameyn karaa dhakhtarkiisa ayuu weydiin karaa maalinkii meeqa calories ayaa liyo geliya oo jirkiga aan cuni karaa marka aniga hadda marka hadii aan iska hadlo kale maalinkii waxa cuni karaa ilaa iyo 1700 calories waa 1700 calories marka hadii saas aad ogtahay kale you count your calories ka ayaa mataqaanaa xisaabinaysa aroortii inta cuntid hadii aroortii 500 cuntid oo kale quraacda qadada cuntid maxaa lahayd 700 800 عشرة ما أعرف هذا عنتيد هذا مثلا 900 بس 600 هذا عنتيد sidaas mataqaanaa 1700 ay kugu dhamaadaan marka qofkaas marka jirkiisa inuu mataqaanaa intaas uu ku celceliyo waxna hoosana uu soo dhicin korna uu dhicin midda kale ugu dambeeyay waxa waa exercise-ka ama jimicsiga qofka waa qofka oo underweight-ka qofkaas waxa uu doonayaa inuu murqana uu dhiso xogaa cadiin uu baahan yahay sababtoo jirka bani aadanka cadiin la'aan haduu noqdo qabow uma adkeysan karo mataqaanaa cadiinta waxa kale oo isticmaala energy hadii qofka hawl uu qabanayo oo jirkiisa xogaa faad waxba aan ku jiro cadiin mataqaanaa awoodiisu way yaraanaysaa mar walba uma isticmaali kartid proteinka jirka ku jiro marka waxaad u baahan tahay calories waxaad u baahan tahay cadiin baad u baahan tahay sidaas daraadeed waa inaa mataqaanaa markaas adiga biraha culusna qaadid cuntadaadana xoogaa calories ka dhakhtarka sidoo kale aad soo weydiisid waxa laga yaabaa hadii mataqaas adiga weight gain aad sameynaysid inuu dhakhtarku dhaho maalinka waxa u baahan tahay 3500 calories inaad ku dhicintid adna markaas inaad ku socotid marka khaladka dhaco qofka mataqaanaa weight loss ka sameynayo khaladka ugu weyn oo dhaco waxa weeye qofkii inuu muxuu rabaa weight loss gareeyo marka wuxuu sameynayaa maalinkii oo dhan cunto ma cunaa aroortii mataqaanaa waxa laga yaabaa inuu shaah cabo laba xab canjeero cuno maalinka oo dhan waxa ma cunaa habeenkii casheen oo ku leeyahay marka midaas waa khalad ka mataqaanaa dadka ay misconception dadka ay u fahmeen gaajada in weight loss lagu sameeyo marka midaas waxa ka dhalan kara laba dhib mid koowaad waxa weeye qofkii mataqaanaa instead of losing fat intuu qofku mataqaanaa cadiin uu isticmaali lahaa jirkiisa wuxuu isticmaalayaa proteinkii ku jiray murqihii ayuu jirka cunayaa gaajo qof jirka markuu uu gaajoodo wuxuu cunayaa murqihii murqaha markuu cuno qofkii jirkiisa calooshiina way taagan tahay jirka kalena cadiin baa uu leeyahay laakiin murqihii ibra midaas marka waxa la yiraahdaa jirka waxa uu wuxuu gelayaa wax la yiraahdo jirka markaas wuxuu sameynayaa wuxuu isdhahayaa mataqaanaa restoration mode waxa loo gelayaa
restoration mode marka maxaa waaye wuxuu leeyahay okay waqtigaana uu qofkan cunto cunayahay wax ma cuni doono marka fatkan dib uu dhiganaya marka qofkii ma lose gareynaya fat ee protein buu lose gareynaya maalinka oo dhan marka daas gaajis ku dishido miisaanka waxba kama dhacayo mataqaanaa marka waxa u baahan tahay inaad cuntid less calories cunto mataqaanaa high fiber la fiber ku badan yahay fatkan uu ku yar yahay marka waxa sameyn kartaa maalinkii 5 goor ilaa 6 goor ah cunaysaa laakiin waxa cunaysid waa protein ka waxa mataqaanaa protein fiican leh fatka uu ku yar yahay carbohydrates kan uu ku yar yihiin marka 6 goor wax cunaysid 5 goor waxa weeye hadii qeydada cuni jirtay hal saxankaas 3 qaybood u qaybinaysaa qayb hada cunaysaa 2 sax kadib qayb kale cunaysaa 3 sax kadib qayb kale cunaysaa jirkaaga markaas mar walba wuxuu leeyahay okay fat baa soo gashay waxba soo galay use garee isticmaal marka baruurti mataqaanaa jirka ku jirta cadiida ayuu isticmaalayaa jirkaaga markaas waxbuu lose gareynaya miisaanku ka dhacaya marka hadii wax su'aal